السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات بندي سلام عليكم. أصحابتك كلهم كنالك. waxaynu doonaynaa inaynu ka yara hadalno barnaamijkiina muhiima kaasoo dadka Soomaalidaana aad ugu yar guud ahaan dunida ay bas la socotaan waxa aad ugu sii badanaya dhibaatooyinka xagga cilmi nafsiga ama dhibaatooyinka nafsiga. Haddaba sidaas ay tahay dadka Soomaalida waxa ku yar dhakhaatiirta baratay cilmiga nafsiga ama cilmiyada dhaqanka bini'aadanka iyo dabeecadaha kuwaasoo aanay jirin wax daraasaad laga sameeyo ama jaamacado sameeyo daraasaad la xiriira fahanka aadamaha dhexdiisa iyo sida aadamuhu isku fahmo. Haddaba waxaynu u baahannahay inaynu dhowr qodob oo muhiim ah dadka uga faa'iidaysano oo ku saabsan xiriirada aadamaha dhexdiisa. ugu horeyn qof kasta oo bini'aadan ah wuxuu leeyahay xiriir kaasoo ah mid uu la leeyahay dadkiisa, deegaankiisa iyo waxyaabaha ku xiriiraysan. saddexda wax ee nolosha ugu muhiimsan ee xiriirka caafimaadka ee dhaqaalaha oo saddex wax aan kala maarmayn qofku sidoo hagaajiyana ku xidhan tahay. mid kasta waxay u baahan tahay skills iyo personal skills oo uu ku korinayo saddexda sida uu u baahan yahay qofku caafimaad ahaan. qof kasta uu garanaya caafimaadku wanaagsan yahay, caafimaadku haddana waxaad u baahan tahay skills diet-kaaga, caafimaadkaaga waxaas oo dhan aad ku ilaalinayso. sidaas la mid ah xiriirka aadamaha ka dhexeeyana wuxuu u baahan yahay techniques iyo barasho iyo aan xirfad qofku kor u qaadi karo hoosna u dhigi karo. qof kasta oo ku guulaystaa inuu kor u qaado xiriirka aadamaha iyo fahankiisa waxaa u fududaataa qaybaha kale ee nolosha. haddaba waa noloshu sida ay linkeeda u leedahay. waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto arrintan in badan dadka Soomaalida iskaga yar. waxaa jira 5 qodob aynu maanta ka hadli doono kuwaasoo ah xiriirka lamaanaha ama labiyo dhitiga qaab fakirkooda. ugu horeyn aadamaha ninka la yiraahdaa waa qaab wuxuu samaysan yahay ka duwan qaabka dumarka. sida aynu kala duwannahay labiyo dhitig ahaan qaabka muuqaalkeena ayaynu sometimes u kala duwannahay qaabka hab fakirkeena. arrinta waxaan doonayaa inaynu si fiican iskula fahanno dhowrkan qodob anigoo uga faa'iidaysanaya arrimahan xiriirka ku saabsan. qodobka koowaad waxa weeye ninku wuxuu samaysan yahay qaab ah in uu marmar galo empty space wax la yiraahdo maskaxdiisa khanka maran. dad badan baan fahansanayn khanka maran waxaan uga jeedaa marka aan leeyahay khanka maran yani waa marka uu qofku galo fakar aan waxba ka fakerayn. waana dhib keenta dadku inaanay badan isfahmin. ninku uu fakeraa gurigu soo galaa intuu fadhiisto ayuu iska fakeraa. gabadha waxay weydiisaa maxaad ka fakeraysaa? dabadeetana wuxuu yidhaahdaa waxba. waayo wuu fakeri karaa isagoon waxba ka fakerayn. halka dumarku aanay fakerin iyagu waxa maskaxdooda markasta ay wax ku jiraan. isagoon maskaxdiisa ku jirin buu iska fakerayaa taasoo u ekaysiinaysa in dhibaata haysato. body language-kiisu wuxuu ekaanaya qof mushkilad haysato. markaa kadib waxay imanaysaa in su-aalo badan lagu celceliyo. celcelintaas su-aaluhuna waxay keentaa in isagiina resistant galo, iska caabin uu sameeyo, mushkilada ay sii abuurto. waa arrin ay u baahan yihiin haweenku inay fahmaan maadaama aanay jirin dad dhakhaatiir iyo cilmi nafsiyo dadka la wadaagaa waxyaabaha maskaxiyan dadku ay ku kala duwan yihiin. taasoo keenaysa inay isu soo dhawaadaan. raydka divorce-ka ayay yareeyaan baa la yidhaha marriage counselorska iyo khubarada ku cilmi nafsiga xiriirada bini'aadanka ka shaqeysa. arrinta labaad waxa weeye jacaylka ninka iyo dumarka. dumarku iyo raggu waxay ku kala duwan yihiin. markaa qofka bini'aadanka waxaynu ku kala duwannahay sidaa fikradeena. marka yani qofku wax jecel yahay wuxuu moodayaa sidiisaas oo kale ah in uu jacaylku qofka kale u dareemo sida uu isagu u dareemayo. yani haddii aad halbeegaaga jacaylka uu noqdo ama doonistaadu sida adigu aad u arkayso wax in sidaasi lamida aad muggiisi hesho, arrintaas oo kale way ku kala duwan yihiin. markaa haweenku waxay isku dayaan in jacaylka qofka kale dhidiga labka inuu noqdo la taabtaan. taasoo adag laftirkeedu in la taabtaan caadiya uu noqdo oo aynu ku kala duwannahay oo laga yaabo ninka in uu iska adayg iyo u samaysan yahay siyaabo kale oo dabeecadiisa aadanimada qof ahaantiisaba iskaga jirto inaan jacaylkiisa la taaban karin. sidaasoo sababta in marmar badan ay dumarku iska weydiiyaan
inuu jecel yahay inuu doonayo iyo inaanu doonayn taasoo ku abuurta warwar iyo fikir badan arrintaas oo kale waxaad kaga hortagi karaysaa adigoo aan halbeeg ka dhigin adigu sidaad wax u jeceshahay inuu ku jeclaado oo kala yani laga yaabaa inuu ku jecel yahay laakiin aanu muujinba marka kaliyaata waxaad ku dadaashaa inaad ogaato markasta inaad lab iyo dhidig tihiin oo idan isku si wax u adduun aragiina iyo qaab fikirkiina ay kala duwan yihiin gabadh Maraykana oo Laara la yidhaahdo ayaa waxay go'aansatay inay u tagto mid ka mid ah khubarada cilmi nafsiga waxaanay uga warrantay dareenkeeda dhabta iyo mushkiladaha iyada iyo xaaskiisa kala haysta arrintaasi Laara waxay ka caawisay inay fahanto qaab fikirka raggu ay u fakaraan ama ay ku kala duwan yihiin rag iyo dumar sida awgeed waxay ka caawisay inay seminaaro badan ka qayb gasho oo xiriirka lamaanayaasha taas oo markii dambe Laaro ay ku sheegtay buugga John Gray uu qoray ee ah Man from Mars and Woman from Venus kala duwanaanshaha labada mehere ee Venus iyo Mars inay ka kala yimaadeen rag iyo dumar arrintaas oo iyadana ka caawisay inay fahanto sida uu ninkeedu yani wax u fahmo taasoo markii dambe ay ka joojisay su'aalihii ay weydiin jirtay iyo wixii markii dambena uu bilaabay inuu isagu wax weydiiyo waa arrimaha iyo daraasaadka laga sameeyey xagga xiriirka Islaamka arrinta ugu dambaysa ee aan ka hadlayaa waxa weeye dhegeysiga inay ku kala duwan yihiin rag iyo dumarku ninku problemku haddii aanu markaa waxba laga qaban karin mushkiladda u isdhaafiya markaa waxay ku kala duwan yihiin rag iyo dumar in gabadhu ay jeceshahay inay la wadaagto problemka iyadan u jeedin dhibaato kale ama inay doonayso problemka laftirkiisa inay la wadaagto taa beddelkeeda ninku marka problem loo sheego wuxuu u qaataa in isaga lagu canaananayo waxaan u galaa qaab iska caabin ah iska caabintaas waxay keentaa in muran badan uu dhasho halka iyadu jeclaan lahayd inuu dhegeysto iska dhegeysigaas oo keliyaata ay problemka iyada ka qaadi lahayd waayo rag ma jecla dhibaataani marka waxba ka qaban karin inay sameeyaan ama ka hadlaan waana sababta ay wararka iyo warbaahinta iyo waxaa isku dhaafiya newska iyo waxyaabaha dunida ka dhacaya inay iska dhegeystaan taa awgeed marka fahanka ay ku kala duwan yihiin bay ka mid tahay marka haweenku markay fahansan tahay ina aan isaga loo jeedin inuu fahmo iska caabintaas waxay keenaysaa hadhow tolo muran waayo qofkaagii aad waxba la wadaagi kari weyday oo iska ka caabinaya automatically isaguna u qaadanaya inaad isaga dhaliilayso arrintaa iyo arrimo kale oo badan aynu ka hadli doonaa toddobaadyada soo socda oo maasantiin la socda xalqadaha soo socda